kulanti wacan daawadayaal waxaan rajaynayaa inaa fiicantiin intaa kadib waxaa jira mawduuc aan u balansaneen inaan ka hadalno oo aan waqti u weynay oo aan rabaa maanta inaan ka gaarsiiyo insha allahu tacaala ramadaan kariim inta aan ku jirno ramadaankan wax video ma duubin maadaama aad u mashquulsanaa intaa kadib su-aashu waxay ahayd ka waran sidee arrintaas laysu waafajiyaa su-aal weligaa ma iska weydiisay waalidiinteenna ama aabayaasheen waxay ahaayeen dad waqti adag soo maray xaalad xunna ku jiray gaar ahaan waayihii ugu dambeeyey soddonkii sano soddonkii sano ee lasoo dhaafay dagaal waddan burbursan iyo jahawareer inay markaasi ku dhex samaysteen dhaqaale inay lahaayeen inay ganacsato ahaayeen inay xoolo lahaayeen inay beero lahaayeen hadba sida markaasi qofka filligiisa uu ahaa annaga maanta marka loo fiiriyo dadkaas aqoonta ay lahaayeen maanta annaga ma lihin waa ka aqoon badannahay marka si loo fiiriyo adduunyada maanta Soomaaliya gaar ahaan sida ay xaalku yahay bulshada Soomaalida cilmi ahaan xadaarad ahaan way ka ilbaxsan tahay dadka dambe gaar ahaan teknolojiyadda marka lagu daro aqoon ahaan maadiyan ka hadlayno dhanka diiniga ka hadlaymayno waxay u eg tahay inaan ka aqoon badannahay dhankii waalidiinteena iyo dadkii naga horreeyay macadallaha iyagaa naga dhaqaalo badan naga taajirsanaa maxaa waa isbedelay su-aasha waxay tahay marka maxaa farqiga dhib maxaa dhacay ma dhaqaalihii waddankaa yaraaday ma adduunka oo dhan baa yaraaday ma annaga wax naga khaldan yihiin mase haddaan kasoo bilaawno marka taariikhda insha allahu tacaala nidaamka gumaysiga ee dadban ee khariban ee iskuullada systemkana qayb oo ka yahay insha allah waa ka hadli doonaa 1990maadkii dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre wixii ka horreeyay dowladda military ayaa waddanka talinaysa dowladdaas nidaamka iyo xeerka ku talinaysa waxaa ka mid ahaa nidaam hanti wadaag la dhaho nidaamka hanti wadaagga ah wuxuu u shaqeeyaa dowladda ayaa wax walba iskale adna waxaa tahay shaqaale ka mid ah shaqaalaha dowladda u shaqeeya wax adiga ku gaara ma yeelin kartid oo aan ka ahayn guriga aad deganta shay walba oo markaasi jiray hadday tahay warshadaha hadday tahay dhaqaalaha kale ee la xiriira waddanka yaalla ama beeraha wax ka soo baxa dalagyada guud ahaan dowladda ayaa la wareegi jirtay iyadaana iib geyn jirta suuqyada geyn jirta caalamka xoolahana ku dar warshadana sida official waa taqaanaba maadaama ay hadda burbureen 1992 markii dowladdii burburtay militariga ururadii la dagaalamay ay rideen hal mar ay ummadda Soomaaliyeed ku soo waabaristeen iyagoo aan waxba farqi ku hayn qolihii muxuu ahaa wax magaratada ahaa ee dowladda la dagaalamayna aysan ku baraarugsanayn waddanka deymo in lagu leeyahay deymahaasna ay ka yimaadeen warshadahan dhisan ee maanta jira sidaa daraadeed laba shay oo laisku daray inay tahay warshadahan tan koowaad dhaqaalihii waddanka oo dowladda ay la wareegtay oo ay tiri wax qof lahaan karaa ma jiraan iyo deymo caalamka laga soo qaato laisku daray in warshada lagu dhis kadib markii ay soo noqdeen oo dagaaladii dhammaad xoogaa yaraadeen oo la siri markaan xaaladda way degtay waxaa haddana u soo baxday dadka Soomaaliyeed ay arkeen haddana in markaasi nin military kale oo waddanka qabsan raba taasoo macnaheedu tahay inay tahay in dibi ku deeri un ay tahay baasho militariga maxaa loola dagaalamay hadduu military kala qabsanaya maxamed siyaad barre waa la dagaalamay kadib waxaa imaaday jenaraal maxamed ciidida imaaday kaasoo ulajeedadiisu ay tahay asaga markaa inuu qabsado haddana taasoo macnaheedu tahay inay markaasi wax isbeddel uusan dhici doonin dadka Soomaaliyeedna arrintaas way diideen taasoo keentay inay dagaalkii 4 biloodka uu ka qarxo magaalada Muqdisho marka ma rabnaa dhanka siyaasadda inaan ka hadalno waxaan rabnaa muxuu galaaftay arrintaas dadka markay soo laabteen go'aan waxay ku gaareen inay warshadaha baabiyaan si systemka militariga uusan marnaba u saldhigan ee soo socda kadibna dhammaan warshadihii iyo dhaqaalihii waddanka oo dhan baa la fiiqday hal xabban lagama reebin iyagoo ka fikirsan haddii warshadahan iyo dhaqaalahan iyo systemkan xafiisyadan dowladda shaqeynaya militariga kale ee hadda waddanka qabsan raba hadduu yimaado inay dowladda hore ka shaqeynayso hawsha hore ka bilaabayso taasoo fikir qaldan ahayd taasoo keentay marka in faramarnaan ay ku soo baxaan dadka Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed ee markaas joogayna laba qayb ay u qaybsameen qoliyo waddanka iska joogay iyo kuwa qaxay kuwii qaxayna waddanka dhaqaale badan ay ku soo kordhiyeen oo dibadaha iyo qurbaha markay tageen oo ayadii ilaahay ku sameeyeen wax ka barteen oo carruur ku dhaleen dhaqaalaha remittanceska lacagaha ugu badan dhaqaalaha Soomaaliya oo ilaa ay hadda ku tiirsan ay tahay lacagaha dibadaha laga soo diro wax badan ay qabteen tan xigta waxyaabaha ay qabteen waxaa ka mid ah musiibooyinkan baahsan markay waddanka dhacaan gaar ahaan sida abaaraha iyo mashaakilaadka la xiriira dhaawacyada halista iyo waxyaabaha aan waddanka gudaha looga qaban karin iyo dadka saboolka markay dhib gaaraan ilaa ay hadda Soomaaliya isu gurmataa dadka ugu badan u gurmadana waa dadka qurbaha degan abaal ayaan uga haynaa qodobka xiga dadka gudaha ku jira iyagana laftirkooda ma sahlaneen waxay samaystaan ganacsiyo waxay samaystaan howlo dadaal bay sameeyeen wax bay qabsadeen aabayaasheen marka ama qurbaha joogaan ama waddanka joogaan waxay samaysteen nidaam dhaqaale oo sal fadhiyo annaga marka qolihii faraq lagu siday markaas dagaalada markay dhacayeen 90maadkii iyo wixii dhalinyarada jilib cuslaatay kuwa yaryar ka hadlamay 2004 iyo waxaas ka hadlamay aan galay wixii dhashay 89 ilaa 95 dhalinyarada farqaha lagu siday ama qurbaha la galay ama waddanka wax lagu baray waxay soo baxeen koox mutacallimiina oo qorax joog iyo qurbo joog basugu jirta aqoon yahana oo wax qoro oo wax akhriyo oo isticmaal marka lagu daro computerka aabayaasheen waa ka aqoon badanna su'aasha markay imaanaysa waxay tahay talow maxaa isbedelay
waalidiinteena iyagoo burbursan oo laga yaabo qaarkood inay ceelasha biyaha ka soo lugeyn jireen oo gaari inta ka soo raacaan 100,000 oo shilin Soomaali lagu tagi jiray bakaaraha ay dhaqaale samayn jireen ganacsato ahaayeen oo ay beero lahaayeen oo ay xoolo lahaayeen oo ay ganacsiyo dukaamo lahaayeen oo ay qurbaha tageen ay adiilay ku sameeyay carruur ku dhalan dukaamo ku leeyihiin ilaa hadana maqaayada marka tagto Mareykanka iyo Yurub aad ugu imaanaysaa ganacsato Soomaali oo taajiriin tujaar ah waxay taa marka su'aashu maxaa isbedelay annagu maxaan u nahay qolyo shiidsan oo aqoon yahana aabayaasheen ee dagaaladaas iyo xaaladaas adag nagu soo barbaariyay ee xilligaas oo xun wax walba dawladda militariga ay ka qaadatayna maxay u ahaayeen kuwa taajiriin oo hanti leh intay rabta la ekaatay su'aasha marka jawaabteeda waxay u baahan tahay dhinacyo badan in laga eego tan koowaad waxaan ka bilaabaynaa systemka waxbarashada waa cadawga koowaad ee dhaqaalaha adduunyada burburiya waxa laga yaabaa inaadan ogeyn sidee loo sameeyay nidaamka iskuulada ee aan 12 sano dhigano lagu daray jaamacadaha sidee u sameeyay say u shaqeeyaan ma ogtahay in loo sameeyay inay soo saaraan shaqaale kow waxa ka fiiraysaa iskuulka waqtigiisa loo ilaaliyo hadii ay ku sameeyeen sida waqtiga loo ilaaliyo tan koowaad waqtigiisa loo ilaaliyo hal saac ama 2 saac waqtigaas waa ilaalinaysaa laba waxay sitaan uniform ma ogtahay saasoo kala shaqaalaha inay u shaqeeyaan tan xigta xisaabaadka iyo calculationada iskuulada ugu barta waxay u sameeysan yihiin in qofku shaqaale noqdo qof wax barta ma laha dadka financial literacy ma laha dadka markii la barayo iskuulada markay dhiganayaan wax financial lama baro wax lama baro investmentiga u shaqeey lama baro wax lama shaqeey entrepreneurshipka lama baro wax lagu barto iskuulada oo adiilay ku sameeyeen dadka bara inay dadku isku filnaadaan ma jirto marka si dabiici ah dadka caadiga fiiri drop out ka adduunka oo dhan aan saasa ma aha Soomaaliya kaliya dadka drop out ka iskuulada ka carara ayaa ka dhaqaala fiican oo ka wax soo saar wanaagsan qoliyaha inta iskuulada dhigtay 12 sano soo dhigtay jaamacadaha ka baxay because systemka iskuulada uma sameysna inuu soo saaro taajiriin dad maxaa yeelay waxyaabo badan oo nolosha caadiga marka banaanka u soo baxay arkaysid baajir iskuulada lagu baran marka niman yahow su'aasheeda marka jawaabteeda waxay noqonaysaa adil ay ku sameeyeen nidaamka adduun isma bedel dhaqaalaha maanta wuu kordhay ilbaxnimada way badatay tiknoolajiyad baa jirta ganacsiga ka balaartay annaga systemka aan wax ku barana wax ka qaldan si marka la soo waafajiyo nidaamka waxbarashada waa in lagu soo daraa nidaam dhaqaale nidaamka financing waa in iskuulada lagu barto xisaabtan baas macallimiinteen waxay noogu sheegeen jireen ilaa hadda annagana ilmaha noogu sheekayna oo lagu yiraahdaa hadaadan wax u baran oo dhibco fiican keenin shaqo ma helaysid arintaas oo carruurta lagu soo barbaariyo 5 jir ilaa 6 jir markuu yahay lagu soo barbaariya ereygaas loo sheegaa maskaxiisa wuu la qabsadaa waxaa jiro tusaale ahaan haddaad taqaanaan iskuulada waxaa dembi ah qishka waa dembi waana khalad weyn sida aad ka warqabtaan iskuulada marka la joogo laakiin ma og tahay qishka real worldiga marka la imaado inuu yahay teamwork wax la dhaho saas ma la socotaan teamwork ma jira iskuulada lagu barto teamwork lagu barto critical thinking lagu barto financial literacy wax kama jiraan aqoon ay dadku financial nidaamka u shaqeeyo ma jiro taasoo keentay inay soo saaraan dad aqoon-yahana oo haddana eber ah oo maran meel ay wax ka bilaabaan garanin sida daraadeed dadka baadiyaha miyiga Soomaalida xoolaha ku raacda ayaa ka roon inay wax soo saaraan qolyaha iskuulada dhigta marka walaalay waxaan kaaga digaa iskuulada kaliya isku halayso nidaamka waxbarashada waa sax waa fiican yahay wax baa lagu qoraa wax baa la akhriska lagu bartaa laakiin ma ahan system soo saara qofka inuu kaliya isku filnaado oo dhaqaale soo saaro ma sida daraadeed si aad u fahamto dunyada si u shaqeyso waa inaad barataa tiknoolajiyada waa inaad barataa entrepreneurshipka waa inaad barataa nidaamka financing soo u shaqeeya waa inaad barataa nidaamka kombiyuutarada si u shaqeeyaan waa inaad isku filnaataa xirfadana aad dhisataa adigoo markaas ka hortagay inaad sabool noqoto oo aad aqoon-yahan noqoto intaas oo ku sugan mawduuca wabillahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh